siyaasigan kulaylkiya la yimid kala dirkiya boobka campaign marka uu rabe kuura goobayo yaa kaleeyay kolbar reer ku guday kama xun soo qaat yaa kormeeray kaymaha cidoo reerka kodoleeyay kasbashada dadweynaha si aan looga kala weecan kanaan yeeli iyo kitaab been ah yaa iskuusay deetana kibroon nagu kufriyay naarta lagu kaydi kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal meel kasta oo adduunka ka joogtaan waa barnaamijkeeni xiisaha lahaa ee ka dabagalka dhaantooyinka iyo falanqaynta hidaha iyo dhaqanka oo aanu ku soo qabanay dhaanto cusub oo asxaabta qaybo badan oo kamid ah soo codsanayeen dhaantadan magaceedu waxa la yiraahdaa tuuga suur kale waxaana qaadaya Abwaanuur Goosaar abwaanka daada yar ee murtidiisa la holin waayay waayadan dambe waxa miraheeda dhaantada iskale abwaan run magaxshe oo garanaysaan waxaana laxankeeda iskale abwaan baadiye abwaanku weynaad oo garanaysaan in badan waxa falanqeeyay daadihii la faguray tabiye waxa sheergariyay ka falceliyay soo codsaday asxaabta iyo macaamiisha sharafta leh ee ku xiran Abwaan TV channel ee Soomaaliyeed soo dhawow haddaad nagu cusubtahay nagu soo biir oo subscribe inoo saar channelka haddaad nala joogtaan oo maasantahay asxaabtaada u sheergare dhaantada soo saaristeeda Abwaanuur Goosaar ayaa iskale booqo channelkiisa oo subscribe u saar abwaanka boorka ka jafa waa nin qoodhi xirada oo murtidu ay biyo dhigtay qoodhi iyo xirada aad iyo aad ina kan dhaantadii tuuga suudka leh ayaan isla arki doonaa سمويهن قفكان تلقود عبرن برشو معاتو وبقارو إليهن إلا تيكسدا tumaygiyo ilantii xudug ma dhalo tii samooyay qofkan tala guud cabirin bulsho uma turo tuuba gaaro ilan meel tiigsada tumayga iyo tiixa waxa la yiraahdaa roobka yarka ah oo xagaayada ah oo biririfka ah oo xiifka ah ay waxa la yiraahdaa tumay waxa kale oo lamid ah dhadadii oo kala lama ah marka doog ma soo saaran iyagu iska dhaaf doog ay soo saaraane hambasha cad ee arjunta ay baxaysa ayay gubaan markay ku da'aan oo dhulku uu gaahiraya markay xagaayada ku daado oo dhibacda weyn ee roobka ayaa soo saarta doogga iyo dhulka quruxiisa iyo hambasha soo saarta sidaas darteed tumaygiyo ilantii xudug ma dhalo tiisa mooyo qofkan tala guud cabirin isaga tiisa idantiisa oo ninka fiiriya oo tala guud cabirin bulsho uma turo oo eber iyo baaba haday isku baxayaan oo isaga dantiisu ka dhaxarko uu isku sidiraya tuuba gaar ah ayuu meel tiigsadayo istrow dheer oo inta leeg buska wataayo meel uu ku rituuradsanaya hadii isaga afku uu qoyo meesha uu la helo wabillahi tawfiiq dhaguhu nabanaya wixii islaynaya yaalkeeda waad faantay wayna ka dadagtaan mal qalcadaasi ina keen ku xigaas la aragne qofki anta ogeeyna taabtoon u tahliiliye xeladiyo tabiyo dunku xoolaha qofkii aan taa ogeyn oo hawsha fahansanayn aan u taabto oo u taxliiliyo oo la faguro oo kala dhigdhige xeelad iyo tab iyo tunku xooglaha ayaa been ku taajiro ka tirsaday bulshada qofkii aan taa ogeyn arintaasi ka dhagala aan u taxliiliyo oo maartay u kala dhigdhigo sida tahay u fahansiyo xeelad iyo tab iyo tunku xooglaha kan tunku xooglaha xeelad iyo tab wuxuu soo bartay bulshada lagu dhaco soo bartay ayaa bulshada ka taajiray oo ka tabcay si kala kuma girtay qoodhi xirada marka dhaantada bacdama ay tahay tuugi suudka lahaa dhaantadan qaam raam waxay karbaashaysaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed soo xafaantama marka meel kale ka raadinay siyaasi ka agday tuug ismaad ah oo labisan oo tay u xiran laakiin tuug ah oo khaa'ina oo doonayo intuu bagaar ah iyo istrow weyn oo meel tiigsado oo ka fikirayninba midda guud iyo midda shacabka iyo midda dadka danyarta ah qoodha iyo xirada ruqiyo hoy midka toobin kula helad tabatuba hanta mid kasiti ayad situma tidan turskiyo hoy marka taayiraado turqin iyo midka toobin kula helaa daba toban tahay midka siitii ayaa sii tumaatidaan tooriskiyo markaasi taayiradu helaan midka ku toogtay ee turqinta iyo toobinka kula helay ee xoolahaagi iyo hantidaadi sida u dhuuqahaya si farsamaysan asagoo labisano ismaada oo u qoslayso u sacabdhabayso ayaa daba toban tahay iskama aragtid midka siitii ayaa tabarta daran ee daciifka ana waa sii tumaatidaan oo haraantibaad dabada kaga laadaan oo hadduu ku dhaho 10 shilin walaalo maanta bal wax igu caymay wax yar si hadaa tira wanaga tago ordo baad la sii tumaatinaysa marka qadan qadiso oo tuurto taayirada baabuurta iyo turiska gododka iyo ayuu ku kufahaya oo ku dhacaya laakiin waxa daba toban tahay oo ixtiraamaysa oo sharfaysa oo wax ka dhigaysa oo maartay kula weyn oo la qosliha alla leedahay kii xoolahaaga si indirect ah hoos ka si sa u guranay waa siyaasigii beeraalaha ay khaayinka qoodh iyo xirada aad iyo waan ku fahanay laakiin siyaasiyiinta sanadahan dambe waa iska qoslaynaa un mooyaane ha u maleyn kalgacay lagu qabo siyaasiyo waan ku fahanay aad iyo aad
mida nimaan marna lagu tuhmayn keligii tooxsadaha ku tagtagan mugdiga tubtay noloshu tahay sahal kuma tage dhuugu tawar yara aadiya taran mida nimaan marna lagu tuhmaynin marna aan lagu tuhmaynin in reer uu mideeyo ama qabaa'il mideeyo ama Soomaali mideeyo ama deegaan mideeyo nin aan marna lagu tuhmayn keligii tooxsadaha ku tagtagan mugdiga ee qolka hoos ka qufusho albaabka maartay dadka daaqada ka fiiriya ee gaariga madow intuu maartay murayadaha u dalacsan shacabku u dhaxmara baahidu laysay ee rafaadan ee hantidoodii uu hoos ka sii iyo qalandalam uu ku dhameystay ee mugdiga ku tagtigan tubtay noloshu tahay sahal uma tago ugu dambeyn ama jirkiisa cadcad loo xabaalayaa ama kansar iyo dhiikar iyo sokor iyo muxuu ahaayay balaayi iyo leeleem wax jini baa ku dhacaya oo aakhir si xun buu u dhimanayaa sahal kuma tagay tubtay noloshu tahay aakhiratan ku sii sugaysa ka darano wal isku sii raacinaya naaraha ilaahay baan ka magan galay buxulahoodii iyo maartay rukumihii lagu shiiday galoolka ahaa ayaa la isku sii raacinaya wala sii hulaaqinayo siyaasi baa la soo wadaay hor isku sii raaci baa la leeyahay Allahumma najira ilaahay baan ka magan galay marka tubtay noloshu tahay sahal kuma tago hase yeeshee dhuugu tabar yara dhuug waxa la yiraahdaa bahal yar oo geela cuna oo baalal yar leh ay yiraahdaa dhuugaasi wuxuu u tabar yar yahay geela wuu cunaa horta waa qaniin koow waa laga dhuujiyaa oo geela waa laga qiiqiyaa oo sida kaneecada aad uga maartay dababka uga shidataan ama askaga uumisaan ayaa iska iyo loogu uumiyaa geela waa bahal dhuug oo af dheer buu leeyahay geela meeshuu ka qaniino uu dhiig baa bud ka soo dhahaya waa qaniin oo geela markuu dhiig cuno markuu dhuugaas cuno dhukaan iyo xanuun iyo balaayo kale ka qaadayo wuu cunaa wuu dib badan yahay oo dibkiisu aad buu u yar yahay sida ay tahay oo dibkiisu aad buu u badan yahay oo geela wuu la xanuunsanayo wuu la dhukaamayo wuu la bogdheeraadayo wuu la rafaadaa sida ay tahay wuu tabar yar yahay oo waqti buu ku eg yahay waqti kooban ayuu leeyahay haday u badato 3 bilood kaba yarba 2 bilood wax ayuu nool yahay dhuuga inta badan intaasi maartay uu nool yahay ayuu dhibaato ka tagaa laakiin siyaasiga marka waa sidii wallahi abwaanka erayada qoray oo abwaan run magacsha meel fog ayuu ka soo qoday erayada qoodhi iyo xirade tusaale u soo qaatay baleeg dhuuga maadaama bil ama 2 bilood hadii u badato uu noolaado ayuu ku matalay ninka siyaasiga ah intuu nool yahay ee joogo ee uu wax yahay baaba iska yar halkii mare la barto haduu wajiga isaga ciyaaro bulshadii uu maartay dhibaato u horseedo waa la dirayaa dib dambe ugu ma soo noqonaya xaraan bay ka tahay wala nacaya waqti buu ku egyahay oo wax waqti ku xiran wixiisu alla dhuugu tabar yara waayahay suur kale teetana wuu dhacayo midkaan taag lahay ee telefoonka xada midna wahan tako horayo tuuganda midna taaj qariyo intu taariikh helaata laway loo dhisaa tuuga suud kale ee title nagu dhiciyo midka taagta daran ee telefoonka xada midna waanta kooraayo tuug baan dhahnaa oo dadkan ka dhaxeyrina midna taaj cad iyo intuu taariikh hela taalo weyn loo dhisaa لا حول ولا قوة إلا بالله وركني كرباش وانا في قودي حرد سياسيينتو ما فهمهayaan wax murtili yiraahdo ma fahmahayaan wax haba yaraatay ee sarbeeb la yiraahdo ma fahmahayaan wax af Soomaali yiraahdo siyaasiyiintu waayo siyaasiyiinteeni hore siyaasiyiin deegaanka ku dhashay oo wadanka ku dhashay oo ku wax bartay oo ku weynaaday oo af Soomaaliga inna aan loo sarbeebi karin bay ahaan jireen hada ilaahay u naxariistay jaalasiyaad barro kale heesaha xukuumaddiisa loo qaadi jiray sarbeeb bay wada ahaan jireen iyadoo jacayl ahaan laga wado ayaa siyaasadana maarta hoos ka sii dhigi jiray sida ay tahay wuu fahmi jiray oo nin wax og buu wax garad uu haayo af Soomaaliga lagu ma gaadi karin wax walba oo soo baxana wuu fiirsan jiray wuuna fahmi jiray Soomaalida garan marka abwaaniinta iyo bahada fanka qayb libaax ay kale yihiin maamulka ama dawladda dhisan hadba sidaas darteed haday wax fahmahayaan farwa weyn baa wax loogu dhigay midani waxba looma haata xitaa hoos laga ma siinine farwa weyn baa wax loogu dhigay wargaarsiya siyaasiyiinta Soomaaliyada qariban soo wax faantama tuuga suud kale ee title lagu dhaco tuuga suudka noo soo xidhay waa tuuga smart kaan ka hadlaynay ee title-ka lagu dhaco title micnihiisu waxa weeyaan wuxuu nagu dhacayaa siyaasi baan ahay title-kiisu waa siyaasi war ma dhakhtar baa tahay maya war ma macallin iskool baa tahay maya siyaasi baan ahay waa title marka tuuga suudka marka ee title-ka nagu dhaco iyo midka taagta daran ee telefoonka xada bal eeg ka taagta daran ee telefoonka xada midna waa ta korna waa kii telefoonka xada iyo tuug baan dhahnaa oo waan meesha lagu arko wala diliba qofkii soo gaara dili ka kaga siin tuug buu ahaa buu leeyahay kana waa tuug asagana laakiin waa tuug la maamuusay oo la sharfay midna taaj cad iyo intuu taariikh helo ayaa taalo weyn loo dhisi oo la soo dhaweyn oo la bomboon oo wax laga dhigay bal abwaanka meeshu ka fikiraday qoodhi iyo xirad tuugaas telefoonka xada ee wadooyinka dadku u istaagay qaadicu dariiqa ee dadka maarta jeebsiiba iyo way siman yihiin ninka siyaasiga ah ee siyaasiyiinta kale aan u shaqeynin umadiisa ee ka fikira
dhuuntiisa wuxuu mariyay iyo tuubada gaarka ee wuxuu la helo siyaasiyiinta markaan siyaasi leeyahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee hadda sanadahan joogo mid dhaama male hal nin dhaama male oo Ilaahay ugu ogyahay waan u fiiriyay deegaan walba waan fiirsaday nin walba oo siyaasi ah hadda rabta amaantiisa shacabka soo doortay oo ka wareysaaday iyo caaydiis shacabka soo doortay ka wareyso hadda aad joogin deegaankaas oo marxaati adiga baad ka ahayd markaad ka wareysato waxay kuu sheegaan wixii kaaga soo baxo wax ka fiiri haddana deegaanka laga soo doortay horumarkiisa iyo sidoo yahay ka fiiri intaba haduusan lahayn waa tuugi suudka lahaay dila oo dhagax ku dila hamaamuus Ilaahay baa idin ku cadaab hadii kale qood iyo xirada xininta aad iyo aad adduunyadu tagto way talaabsato teknolojiya dayaxay teegsatay aqoontiyo tacliin yeelu taarmagooyaan tabaryara adduunyadu tagto way talaabsatay qaab technology ah dayaxay teegsatay aqoontiyo tacliinteenu taarmagooyaan tabaryara war adduunyadu way hormartay way tagto way talaabsatay nalama joogto adduunku naga tagay meesha u dambaysan joogna qaab technology ah dayaxay teegsatay xitaa dayaxii baa laga soo warbixinay laga soo warramaya oo dad loo dirayaaba nool oo caadi ah Soomaaliya garan aqoontiya tacliinteena anaga tahar ma gooyaa wax yar oo inta la eg ma gooyaa tahar marka waxa la yiraahdaa hilibka maartay neefka hadda caatada oo kale jiirkiisu wuu ka adag yahay jiirka kale ee neefka buuran ee cadiinta leh wuu ka hilib adag yahay neefka kale tahar marka neefka weyda ah ee caatada ah hilibkiisa midida lagu goonayo hadii midi aflaan ay tahay waxa leeyahay waxan midi ma aha tahar ma goonaysa iga leeyahay hilibku waa tahare tan ma goonaysa marka aqoontii tacliinteenu tahar ma gooyaan wax inta la eego goonayaan male waa midida saawirteeda aflaan tahay nin walba sukaana waala aqoonyahan baan ahay PhD baan wataa Mareykankan ka imid kan baa waxa saxa hay'ad habel baan ka soo shaqeeyay wax walba ha dhaho xil u dhiibo marka adu wax isbedela oo la imaan male waa unkii deegaankana waa kii dadkana waa sidii marka aqoontiyo tacliinteenu sanad Ilaahay galiye malaayiin Soomaali ee qalin jibisay xagee ka baxday aqoontii awag yaa ku intifaaca yaa dheefsada war aqoontiyo tacliinteenu tabar yara waa yaab turkigiyo waxa tayla laga dhistay tamashlaha ku baxay hooyo timir gadiyo ababeer turqay oo tunkii samaalawto saysuwa turkigiya waxa taylan laga dhistay tamashluhu ku baxay hooyo timir gadiyo aaba beer turqaday oo tunkiisa maala u toosay subax turkiga iyo waxa taylan laga dhistay ee guryo ah ee hodheelo ah ee siyaasi ka dhistay wax isaga uu soo shaqeystay ma aha dhididkiisa iyo xooggiisa wax ku imaaday ma aha waa xoolihii dadweynaha shacabka canshuurta keen waxaas bixi deegaanka lagu horumarinaya kan baa lagu sameeynaya inta waxan weeyo sidii loo leeyahay waba kaaba guryo iyo hodheelo laga dhistay turkiga iyo Thailand iyo wadamada maartay caalamka kale xitaa hadii uu deegaanka dib ugu soo celinayo deegaankii uu hodheelo iyo guryo ka dhisanayo dad baa ku intifaaci lahaa dad baa ku soo degi lahaa horumar bay deegaanka u ahaan lahayd bilic bay magaalada u ahaan lahayd ma yeelahayo wuxuu maal gelinayaa wadamo kale Soomaaliya garan wadamo kale uu ka dhisanaya wadanka uu isaga wax ku ahaa ee laga soo doortay ee uu matalaya xitaa iskuma aaminayo wadan kale oo maal gelinaya wax ka dhisaya oo bilicdiisa kordhinaya hooyo timir gaday timir la fariisatay jidka wadada la fariisatay iyo aabo beer turqaday oo tunkiisa maalay ayaa u toosay subaxe oo u soo dhididay oo subax u kala lahay wax iyagu ay shaqeysteen hantida hodheelada ku dhisteen ma aha waa xoolihii dadweynaha cambaarayn baa looga timid cambaarayn weyn baa dhanka abwaanada iyo bahda fanka kaga socota baryaha siyaasiyiintii waa la isku fahmay toosh baa la isla daba istaagay afarqaada ummatii ku nool sidee neef la taray duurin lagu xirxiray kalaatiisayo doobiyaa ku guda tooshka meesha had ku shiidi toos wuxuu ma arkaa umatii ku nool oo sidii neef la tolay tuurin lagu xirxiray tala aad siisay iyo tooshka meeshaad ku shidi toos wax uma arkaan umatii ku nool tii waxa la yiraahdaa ninkii baadiye Soomaaliya baa garanaya Soomaaliya inta badan waa isku dhaqan markaan ciyaalka ahayn intaan gacmaha sidaas ku qabsano anagoo group ah ayaa waxaan dhigi jiray ninkii dhacawa ma dheer ninkii dhacawa ma dheer ninkii dhacawa ma dheer gacmaha intaas qabsano ma artay oo ninba nin gacanta kala sii qabsado yaa la is wareejinaya ma fahanti ninkii dhacawa ma dheer way marka ninkii dhaco waa ma dheer ninkii dhaco oo dhulka tagaba waa ma dheer micni wax nool ma aha man dheer weeyaa si kale kuma garatid Soomaaliya garan marka tii marka waa sidaas ayada waa ummad sida ku noolba rotation wareeg cycle sidaas ku nool yihiin marka ummad tii ku nool oo sidii neef la tolay tuurin lagu xirxiray dadka geeleyda garanayay waxa jirta wax la yiraahdo sidig ayaa jirta sidig ama hashan waa la tolay ama waa la sidkay marka sidigtaasi tolmadaasi waxay ka micno tahay hashan canugeedii markuu dhinto ama la qasho ama ma aragtay ay soo dhicisto laakiin caanaheedii iyo irmaankeedii in la intifaacsado la rabo ilmo kale oo rajay lagu koriyeeyaa iyo hal kale oo weyda ama habara ama caanaheeda reerkaasi ma artay la rabo in reerkaasi lagu intifaacsado loo reebiyaabo ayada markii waxa la sameeynaya canug kale ayaa lagu tolahayaa lagu sidkahayaa canugeedii waa looga dhigayaa
qaar baa canugeedii looga bixinayaa maqaarkii baa cunugii loo marmarinayaa waa lagu weerixinayaa ganaf wax la yidhaahdo ama tuurin oo sanka ayaa laga xidhahayaa hasha sanka mayrax lagaga duubayaa waa la ganfayaa ama marka ganaf wax la yidhaahdo ama tuurin baa sanka lagaga duubayaa iyo afka baa la isku duubayaa waa ummad maaragtay ganaf ama tuurin ku xirxiran yahayo sidii neef la sidka hayo loo weerixinayo sida ayadaa cod iyo maaragtay xasaarad lagaga qaadanaya lacagba soomaalida garan marka ummad marka noocaas oo sidaas ah tala aad siisay iyo toobiyaha ku guda tooshka meeshaad ku shidi toos wax uma arkaan dad toos wax u arka maaha ileen waa dad ayagoo isku daba maartay ninka dhacawa ma dheer hoosla isku daba wareegaya weey qoodhi iyo xiraday aad iyo aniga tiif qabo kaligayo talama qalbituhum ku jira shaki kama tago wanta waa wacay abanta abale iyo halmaytaaba gaali aniga tiif qabo kaligay unta lama qalbi tuhum ku jira shaki kama tage waanta waa wacay tabantaabadaydu hadmay taabageli aniga tiif ku nool oo rafaad iyo tiiraanyo iyo dhibaato ku nool qalbi tuhum ku jira shaki kama tago tuhun haduu kugu jiro tuhun iyo shaki waa isla mid une laakiin qof qalbi maarta tallan ku jira tallan Soomaaliga garan tallan baa ku jira goormay sida noqon doontaa iyo tallan iyo wahan baa kugu furan waanta waa wacay oo gadgadoomay oo muxuu ahaayay tiiraanyooday oo dhibaatooday oo hiirtaamooday wax walba tabantaabadaydu hadmay taabageli waxaan aniga aan iska dhaadhicinaya ee way imaan doontaa aan leeyahay haddaan shacabkii ahay ama abwaankii ahay ama muxuu ahaay hal abuurkii ahay ama suwaanyahankii ahay waxaan aniga ii muuqday ee hortaagan hadmay taabageliyo sidaa rabay noqonaysaa maba noqonaysaba adduunka waa ku rogmaday goormeed sugi uga suur kale teetanagu dhacayo midkaan taag lahayn ee telefoonka xada midna waahan tago horayo tuubanda midna taaj cariyo intu taariikh helaata laway loo dhisaa uga suur kale teetanagu dhacayo midkaan taag lahayn ee telefoonka xada midna waahan tago horayo tuubanda midna taaj cariyo intu taariikh helaata laway loo dhisaa tuuga suud kale tayta nagu dhiciya midka taagta daran ee telefoonka xada midna waanta kooraayo tuug baa dhahnaa midna taaj cad iyo intuu taariikh la taalo weyn loo dhisaa hadda wixii ka dambeeyay laakiin ma laha waan isku fahmay siyaasiyo sida u fahan dadkan ku dhool la cadeynaya qalbiga kaama jecla way isaga ka qoslayaan qaar baa qabiil isaga ka taageeray qaar baa hal iyo laba oo project assess isaga ka taageeray laakiin dadka kuma jecla siyaasiyo Soomaaliga garan anu hadda waxaan ku baaqayaa oon u sheegayaa bulshada Soomaaliyeed meel kasta joogaan oo ay dhaqameedyada ha hogaamiyaan wallahi billahi tallaah ugaaska garaadka waxa qabyaalad isnacayb isdil hunguri waxaasoo dhan waxa dadka dhex dhigay iyo kala qaybin waa siyaasi maamul goboleedyada faraha badan maxaa keenay siyaasi baa keenay si jagada loo badiyo ilaa dadkii baa shaqadooda siyaasad u noqotay marka oday dhaqameed go'aanka iyo masiirka dadkiisa iyo qabiilkiisa iyo deegaankiisa go'aan ka qaato oo looga dambeeyo ha isticmaalaan Soomaalida hadda wixii ka dambeeyo siyaasi ku soo fariisaha la dhaho wallahi bila talidii haday tahay sidaas aan sameyn lahaa qoodhi xiradi tan iyo falanqaynteena iyo kulankeena xiga waxaan kaga tagayaa sidaas iyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh